ka soo qayb gashay sanad guurada 108aad ee ka soo wareegtay xorriyaddii dalka Finland oo aynu maanta ku xusayno caasimadda Somaliland aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waqtigiina qaaliga ah eedna soo siiseen codsigii aad naga ajiibteen waan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin Kiittää teitä osallistumaan Suomen itsenäisyyspäivä. Juhlitaan erityistervehdys suomalaisia, joka asuvat ympäri maailmaa. Toivotaan teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää. Me kiittää paljon soo dhawaada mar labaad mar saddexaad soo dhawaada aad iyo aad idinka mahadcelinayaa qurba joogta dadka finishka iyo dadka ka tirsan jaaliyada aad baan idin salaamayaa xafladdu way noo furan tahay Assalamu alaikum warahmatullah. Minun tehtäväni on varmaan tänään, tai minun tehtävä oli pitää erilainen puheenvuoro, mutta ajattelin vähän soveltaa ja pitää vähän hauskaa. Ensinnäkin hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Minä olen itse asiassa osallistumassa ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyspäivän juhlaa Somalimaassa. Mä tiedän, täällä on paljon lapsia, nuoria, äitejä ja isiä. Äsken olin tuolla aulassa ja tuli muutama tyttö vastaan ja sitten minä tervehdin heidät suomen kielellä ja heillä oli korvat siis höröllä, että anteeksi mitä? Joku puhuu suomea täällä. Ja sitten mä sanoin, mitä te ihmettelette? Me ollaan kaikki täällä. Vaihdoimme suomen kielellä keskustelua. Pahittelen myös waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadan soo qaban qaabisay kulankan caawa oo isugu keentay iyo dulqaadkeeda faraha badan waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada iyo hooyooyinka caruurtii soo kaxeeyay xilligan dambe aniga kolley mikrofoonka waxaa la igu dhiibay waxaan ahay dadkii malaa ugu horeeyay ee soo guuray halkan yimaada ilaa 8 sano ka hor 8 sano ka hor supermarket Hargeysa muu ku yaraa cuntooyinka hadda la cuno ee kala duwan ee Yurub laga keenay bariga ma jirin anu waxaan la kulannay xilli ka duwan xilligan hadda caruurta ama faamiliyada yimaada ay runtii helaan oo chance fiicana oo jaaliyadihii joogaan oo meelihii lagu ciyaarayay la wada garanayo oo Yurub oo kala yaalay ay yaalaan halkan la keenay barigoonnimi anagu meel lagu dabaashaa ma jirin meel wax lagu ciyaaraa ma jirin waxaanu ahay miiga intaan caruurta ka xaynanu geen jirnay tuulooyinka markaasaan odhan jirnay halkaas meelihii wax cusub baynu baranaynaa laakiin hadda waa la ilbaxo layna kala duwan iyo ciyaaro kala duwan baa dalkii Yurub iska noqotay yar marka waan idin mahadnaqayaa waan idin soo dhaweynayaa 100% waxaan idin leeyahay sanad guuro wacan waayo dalkeenni labaad weeyaan Finland marka kiitos paljon nostatte vaikka käden ja pidätte vähän meteliä ja nostatte oman kaupunginne puolesta vähän meteliä. Elikkä kuka täällä on Espoosta? Kädet ylös. Eikä yhtään henkilöä Espoosta. Espoolaiset. Rerespo. Ja kuda Rerespo. Espoo, täällä on muutama. Okei. Hienoa. Seuraavaksi. Kuka tai ketä teistä täällä on kotoisin Helsingistä? Helsinki, käsi ylös. Pitäkää matala. Ääntä. Yksi henkilö. Kaikki näyttää vähän siltä, että kaikki muut on täältä yhdestä kaupungista. No niin. Kuka teistä täällä on Vantaalta? Vantaa, käsi ylös. Kaikki näyttää siltä, että kaikki on Vantaalta. Aivan mahtavaa. Kuten huomaatte, olemme kahden kulttuurin kansa. Meillä on juuret täällä ja kotimaa Suomessa. 2 kulttuuria, 2 eri maassa pidetään itsenäisyyspäivää. Tänään
emme juhli ainoastaan Suomen itsenäisyyspäivää, Suomen historiaa, me myös juhlimme sitä mahdollisuutta, jonka Suomen maa antoi meille koulutuksen, turvan ja mahdollisuuden onnistua. Siksi pidämme tänään itsenäisyyspäivää täällä Helsingissä taas Hargeisessa. Tämä on kunnianosoitus myös Suomelle, josta olemme saaneet turvaa silloin, kun täällä oli sota. Pyydän teidät kaikki tervetulleeksi Hargeisan paikallisen itsenäisyyspäivän juhlaan. Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi! muwaadiniinta reer Finland ee dibadda ku noolow waxaynu u dabaaldegaynaa maalinta madaxbannaanida Finland annagoo xilligan adduunka annagoo ku jirna xilli adduunku qalalaase badan leeyahay dhibaatooyinka khilaafaadka iyo arrimaha halista ku ah kala duwanaanshaha dabiiciga ah waxay saameyn ku yeesheen nolol maalmeedkeenna meel kasta oo aan dunida ka joogno hase yeeshee xilligan hubanti la'aanta ah ma aha inaan u dhacno niyad jab waxaan haysanaa dhammaan furayaasha guusha annagoo ah qaran iyo annagoo ah shakhsiyaad haddii aan isku kalsoonaano oo aan midka kale ku tiirsanaano Finland iyo dadka Finlandiiska ah waxaa dunida looga yaqaanaa inay yihiin kuwo lagu kalsoonaan karo xasiloon oo mas'uuliyad qaata intii aan sanadkan booqashooyinka ku marayay dalal kala duwan waxaan arkay in xirfadda iyo aqoonta dadka Finland loo baahan yahay waxaan leenahay khibrad heer sare ah tusaale ahaan tiknoolajiyadda isgaadhsiinta dayax-gacmeedyada iyo goobaha macdanta iyo khayraadka dhulka idinka oo muwaadiniinta dibadda ku noolow waxaad leedihiin fursad gaar ah oo aad dhambaalsidayaal uga noqon kartaan daafaha dunida sheeko kasta kulan kasta iyo ficil kasta wuxuu Finland u soo dhaweeyaa dunidana u soo dhaweeyaa Finlandisnimadu waxay ku nooshahay sheeko nololeedkiina mid kasta khibraddiina aragtiyihiina iyo geesinimada aad ugu hayaanteen wadooyin caalamka ah waxay kobcinaysaa hodantinimadeena waxaan dhammaantiin muwaadiniinta dibadda ku nool iyo dadka asal ahaan Finland ka soo jeeda ee dunida ku nool ee kuna baahsan idiin rajaynaya maalinta madaxbannaanida oo aad u wanaagsan una nabdoon taasina waxay ahayd khudbaddii uu madaxweynaha Alexander ugu talagalay dhammaan qurba-joogta Finland oo idinkan aad ka mid tihiin oo aanan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Suomen kansalaisille ja hallitukselle tavoitan kaikki teille valoisa tulevaisuutta ja menestystä kaikki Suomen kansalaisille. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikki suomalaisille Somalian maissa tai maailmassa. Waxaan halkan uga hambalyaynayaa dhammaan muwaadiniinta Finland ee Finishka meel kasta ee adduunka kaga nool yihiin haddii ay qurba-joog yihiin iyo haddii ay ku nool yihiin dalkii Finlandba waxaan idiin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan guul iyo horumar waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi millä kielellä täytyy sen selkää vetää, niin mä varmaan pitänyt Suomessa tässä kohtaa. Mä haluan käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja kiittää lämpöisesti järjestävää tahoa kaikista vaivannaista, että olette järjestäneet tämän upean tilaisuuden tälle illalle tänä erityisenä päivänä, varsinkin meille suomalaisille. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Ja toinen asia, mikä mä haluan tässä kohtaa nostaa esille, on se, että mä haluan kiittää Somalian maan kansalaisia siitä lämpöistä vastaanotosta, mikä me ollaan saatu teidän puolelta saapuessa maahan. Me ollaan lyhyen vähän aikaa oltu täällä, mutta te olette saaneet tästä paikasta ja tehtyä meille kodin. Kiitos siitä. Honored guests, esteemed members of Somaliland Finland Development Organization, and cherished members of the Somaliland diaspora community. As we come together to celebrate Finland's Independence Day,
It is a moment not only to honor Finland and its remarkable history, but also to reflect on Somaliland's current path, challenges, and the vital role our diaspora plays in advancing Somaliland's future. To the members of the Finnish Development Organization, your dedication is a beacon of hope. You build bridges between cultures, economies, ideas, and foster development that uplifts both our homeland as well as your country residents in Finland. Your work exemplifies how diaspora engagement is critical for national development. As we reflect, waxaan idin leeyahay walaalayaal waddankeena xaalado culus baan ku jirnaa oo qurbo joogteenana inta ugu badan marna waxa weeyaan xalka noqon karayna marna dhibaatada noqona marka runtii qurbo joogteena inta badan waa waadaniid oo waddankooga jecel oo dadkooga jecel hadda intuu yaraydo tiradii ugu yaraydo baa codkoogana weynaaday marka runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintaa e-fiisada oo in badan haysay oo dowladeena si weyn oo si ballaaran ka shaqaynaysay inaan ka soo howlbaxno marna dowlad diyaaradayaasha oo waddankeena ku soo degaan way nala qaateen marna way ka noqdaan marka qurbo joogu waxaan idin leeyahay annagana inaad nala shaqaysaan oo nala howlgashaan arrintan e-fiisada ilaan qurbo joogo annagii na dhanaysa oo weliba annaga ugu dhoof badan marka waxaan jeclaan lahayn inaad wadamadiina aad joogtaan inaad airportada tagtaan oo diyaarada la kulantaan oo ka dhaadhicisaan in e-fiisadan inay khatarna gelinayso inay informationkeena banaanka la soo dhigayo oo la iibinayo oo khatar hadhow toona nagu dhaci doonta inaad dowladiina u tagtaan oo fahamsiisaan e-fiisadan wax oo policy oo jirto oo sharciga ku jirto maaha marka qurbo joog waxaan idin leeyahay inaan si dhow isla wada shaqayno dowlad ahaan waan qabanaynaa intaan qaban karayno hadda tiridiina naga badan marka walaalayaal waxaan idinku leeyahay horta sidaa u samayseen idinku intay Sweden siisay xorriyadiinii ruushkiidii yara tabaaciyey ee ay iskaga celiseen markii dambe wixii nigu hesheen oo kale ayaan nagu maanta teedii oo kale aan dalka Soomaaliland anaguna waxay iga soo noqonay waxaan jeclaan lahaa deedna iyagu ina gacan qabtaan oo ictiraafka inala raadiyaan iyaguna insha allah marka waxaan u baahnaa idin translator iyo maxaa turjumaan yara sameeyay intaas oo u turjumaa qoladeennan ayaan u baahnaa waa mahadsantihiin waxaan u hambalyeelayaa horta wax qabsiga ay qabsadeen muddo waxaan malaynayaa labadii maxaa 1912 iyo 11 meelahaasay ahayd waxaa laga soo wareegay 108 sano maantoo kale maalintii ay qaateen oo ku beegan 6 bisha December 2025 marka kolley waxaan ku hambalyeelayaa muddadaa wixii ay qabsadeen maxaan ku dhahay muddo inay kaga duwan yihiin dadka kale Scandinavia ama Yurubta kale oo xagga matalan markaan eega aqoonta oo kale ama siyaasadda oo kale waxaan tusaale u soo qaadan karaa dadkeena ugu waaweyn ee muctarifka ah ee reer Somaliland waxay intooda badan ama deganayeen ama wax ku soo barteen sanadihii intii ugu dambeysay innagana siyaasaddu iska bedeshay tan dambe casriga inoo timi markaan ka soo qaato Faysal Cali Waraabo oo kale madaxweynaha maanta talada haya ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo kale isaguna wuxuu fiila wax ku soo bartay oo si maxaan ku dhahday finish joogay wax ku soo bartay rag aad u fara badan saas oo kale ayaa wax loo soo bareen oo maanta dalkii loo hogaaminaya waxaan jecelahay sida